marka banaadka waxa soo gelaya inantii isagu uu dhalay iyo inanta dadku isagu uu dhalay ay dhaleen inantu inankiisu dhalay inanta inantiisu ay dhashay hoos usii soco intay doonayeen hoos ha u gaadhaan qultu waxaan idhi buu ihi walmakhluuqata laga abuuray min zinaahu zinadiisa taxilu lahu xalaal bay u tahay oo inanta uu zinada ku dhalay wuu guursan karaa sidaasuu leeyahy waana sida umka shaafici ku taal oo dee karaahu ku sheegay lakiin wuxuu daba dhigay hadduu guursado nikaaxa fasikhi maayo taasoo dee macnaheedu yahay inuu guurkaasi ansaxay oo sababtu waa maxay waa asaxu lawjuh dee awjuh badan baa ku jirte wejiga ugu ansaxsan waana se maalik uu ku tegey madaahibta kale iyagu waa diidan yihin axmed iyo abu xaniife iyo qaطcan oo xaaraan bay yidhahdeen waxay xujaysteen waynu sheegi doonaa ee tan maxay ku saleeyeen liannaha ajnabiyat canhu bay ma loogu abtirinayaa maya looguma abtirinayo idan ajnabi bay ka tahay oo dee dumarkaa kale kama xigto mar haddaanay ku abtirsanahayn gabadha uu zinada kaga dhalay ogolaanshaheeda arrintaas ha ku dhacdo ama ha khasbo oo ha kufsado inantaas ay dhasho waxa weeyaan waa xalaal bay ut ha ogolaado isagoo ha idhaahdo anaa dhalay oo anaa layga abuuray xaaraan laygaga abuuray ama ha diidanaado waa isku mid bay leeyihin weji kale wuxuu leeyahy waa xaaraan qaطcan xaaraan bay ka tahay waana madhabu axmed o abu xaniifa waayo